السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيارتنا عن جعلنا هاي كلنتي وناكسن كسو دوادا برنامج كينا فاقدات دعيارها او اتكلا السعوطان برتا عن يوتيوب كلنا هاي شبال الميديا ما انت برنامج كينا وحان كو ايقي دونا شانتا هوريال قارده يورب وواوين حلي عيارات كان سيدا لو كلا قوليستي يا كالمها سيدا لو كلا قلي haddaba aan ku horeynay wadanka Ingiriiska horyaalka Premier League ayaa waxa qaaday kooxda Manchester City ayadoo koobkan ka qaaday kooxdii difaacaneysay ee Liverpool waxa kaalinta labaad galay kooxda Manchester United halka kaalinta saddexaadna ay ku jirto kooxda Leicester City waxa kaalinta afraad ku jiro kooxda Chelsea oo hal dhibic ka sareyso kooxda Liverpool. haddaba kooxda Liverpool oo qaaday horyaalka sanadkii hore ayaa waxa laga dhexlayahay afarta koox ee ugu sareyso walow hal kulan ka haray horyaalka Premier League haddii ay kulankaas Chelsea bareejo gasho Liverpool ay soo badiso waxa kaalinta afraad soo gali doona kooxda Liverpool haddii Chelsea ay badiso sanadka dambe kooxda Liverpool waxay ka dheeri doontaa koobka horyaalada Yurub. dhanka Isbaanishka haddii aan fiirino oo sanadkan meel xiiso la marayo ayaa asigana waxa iskugu soo haray tartanka horyaalka La Liga laba kooxood oo kaliya kadib markii daaqada laga tuuray kooxda Barcelona oo sanadkii labaad oo xiriir ah seegayso koobka La Liga. haddaba kooxda Real Madrid iyo kooxda Atletico Madrid ayaa ah labada koox oo koobka ku dagaalami doona kulanka ugu dambeeyo. kooxda Atletico Madrid ayaa hadda waxa ay ku hogaaminaysaa laba dhibcood oo ah kooxda booska koowaad fadhiso. haddii kooxda Atletico Madrid kulanka u haray ay badiso waxa horyaalka sanadkan loo diiwaan gelin doonaa kooxda Atletico Madrid oo tan iyo 2014 ay noqon doonto markii ugu horeysay ay qaado. haddii kooxda Atletico Madrid laga badiyo kooxda Real Madridna ay soo badiso waxa horyaalka ku guuleysan doono kooxda Real Madrid. haddaba waxaan fiirin doonaa kulanka Real Madrid u haray iyo kooxda Atletico Madrid u hartay boqolkiiba 90 waxa la dhihi karaa koobka horta waxa ku guuleysanayo kooxda Atletico Madrid maxaa yeelay marka la fiiriyo kooxda u hartay waa koox Serie B ka carareyso oo haddii laga badiyo waxay aadi doontaa Serie B. kooxdaasna waxaa milkiyadeeda iskale halyaygii xulka qaranka Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Luis Nazario da Lima Ronaldo ayaa kooxdaas iskale. haddaba Atletico Madrid haday baraajo gasho oo Real Madrid soo badiso maxaa dhici doono haddii Real Madrid ay soo badiso Atletico Madridna ay baraajo gasho xagga dhibcaha isku mid ay ka noqon doonaan laakiin waxa la fiirin doonaa labada kooxood yaa soo badiyay. sidaas darteed waxa koobka ku guuleysan doono kooxda Real Madrid oo labadii lugba ka soo badisay kooxda Atletico Madrid. haddii Atletico Madrid laga badiyo Real Madrid ay badisana koobka waxa qaadan doono Real Madrid. haddaba Real Atletico Madrid koobka waxay ku qaadaa badis oo kaliya. kooxda Real Madrid waxay sugi doontaa natiijada kulanka Atletico Madrid iyo kulanka ay la ciyaari doonto. haddii marka Real Madrid laga badiyo Atletico Madrid laga badiyo koobka waxa qaadan doonto Atletico Madrid. haddii Real Brazil la geliyo Atletico Madrid Brazil la geliyo koobka waxa qaadan doonto Atletico Madrid. Real waxay koobka ku qaadaa oo kaliya Atletico Madrid oo laga badiyo ama Brazil la geliyo Realna ay soo badiso. haddii aan kaalinta labaadna waxa ku jiro kooxda kubadda cagta Real Madrid kaalinta saddexaad waxa ku jirto kooxda Barcelona halka kaalinta afraadna ay ku jirto kooxda Sevilla. horyaalka Isbaanishkana sidaas ayaa loo kala horeeyaa. dhanka Talyaanigana waxa hogaaminayo horyaalka oo mar hore qaaday kooxda Inter Milan waxaana kaalinta labaad ku jirto kooxda Atlanta. waxa kaalinta saddexaad ku jiro kooxda AC Milan halka kaalinta afraadna ay ku jirto AS Napoli. Juventus oo sanadkii hore horyaalka qaaday ayaa ayadana waxa ay ka dhacday kaalinta shanaad walow kooxda AC Milan iyo Juventus iyo Napoli ay hal dhibic oo kaliya ay kala sareeyaan oo haddii laga badiyo AC Milan kulanka dambe Napoli laga badiyo Juventusna ay soo badiso ay Juve imaan doonto kaalinta saddexaad oo markaas waxa booska ka bixi doono kooxda AS Napoli. dhanka Germany waxa koobka ku guuleystay oo koobka qaaday kooxda kubadda cagta Bayern Munich
waxaa kaalinta labaad galay RB Leipzig. waxaa kaalinta saddexaad ku jiro kooxda Borussia Dortmund. waxaa kaalinta afraad ku jiro